sheeg haweeneydii ugu dambaysay ee geeriyoota haweenkii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. jawaabtu waa Salama. sheeg magaca haweeneydii lagu naanaysi jiray Masaakiin. jawaabtu waa Zaynab bintu Jahsh. sheeg magaca haweeneydii sheegatay nabinimada xilligii khilaafadii Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. jawaabtu waa Sajjah bintu al-Harith. sheeg magaca haweeneydii dhashay saxaabigii Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu. jawaabtu waa Hindah bin Utbah. haddaba bal isku day inaad sheegto magaca haweeneydii ugu dambaysay ee uu rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam guursaday. sheeg qofkii ugu horeeyay ee sooma. jawaabtu waa nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam. sheeg qofkii ugu horeeyay ee ku labista surwaal. jawaabtu waa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam. sheeg qofkii ugu horeeyay ee gabya. jawaabtu waa nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam. sheeg qofkii ugu horeeyay ee falaar u tuura alla dartii. jawaabtu waa Sacad bin Abi Waqaas radiyallahu anhu. sheeg qofkii ugu horeeyay ee qora bismillaahi arrahmaani arrahiim. jawaabtu waa nabiyullaahi Sulaymaan calayhi salaatu wassalaam. haddaba bal isku day inaad sheegto nebiga ugu horeeya ee dhar loo xiri doono maalinta qiyaame. sheeg magacyada labada suuradood ee loo yaqaan az-Zahrawaan. jawaabtu waa Al-Baqarah iyo Ali-Cimraan. sheeg magacyada laba suuradood oo ku soo degay magaalada Makka, mid kastana aayadaheedu yihiin 88 aayadood. jawaabtu waa Al-Qasas iyo Saad. sheeg magacyada laba suuradood oo ku soo degay magaalada Madiina, mid kastana aayadaheedu yihiin 78 aayadood. jawaabtu waa Al-Hajj iyo Ar-Rahmaan. sheeg magacyada laba suuradood oo ku bilowda mucjizo ka mid ah mucjizooyinka nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. jawaabtu waa Al-Israa iyo Al-Qamar. sheeg magacyada laba suuradood oo lagu sheegay axkaamta xajka. jawaabtu waa Al-Baqarah iyo Al-Hajj. haddaba bal isku day inaad sheegto magacyada 3 suuradood kuwaasoo aayadahoodu ku dhammaadaan sujuudu tilaawa. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca nebi Zakariye. jawaabtu waa 7 jeer. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca nebi Yaxye. jawaabtu waa 5 jeer. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca nebi Saalax. jawaabtu waa 10 jeer. sheeg magaca nebiga ugu badan ee lagu xusay hal suurad magaciisa. jawaabtu waa nebi Yuusuf. haddaba bal isku day inaad sheegto magacyada 6 suuradood oo loogu magacdaray 6 nebi magacyadooda. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca nebi Yuunis. jawaabtu waa 4 jeer. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca nebi Ibraahim. jawaabtu waa 72 jeer. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca nebi Aadam. jawaabtu waa 30 jeer. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca nebi Zakariye. jawaabtu waa 6 jeer. haddaba bal sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay magaca Allah. jawaabtu waa 1740 jeer. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay kelimada alxamdu. jawaabtu waa 27 jeer. sheeg imise jeer ayaa qur-aanka lagu sheegay kelimada rabbana.
jawaabtu waa 104 jeer sheeg imise jeer ayaa quraanka lagu sheegay magaca jibriil jawaabtu waa 3 jeer sheeg imise jeer ayaa quraanka lagu sheegay magaca nabi yuusuf jawaabtu waa 26 jeer